السلام عليكم. كسو دوادا موضوعنا maanta إخلاص أكاديمي and technology iyo casharada taxanaha ah ee halkan aan ku bixino oo iskugu jira video editor, design iyo barnaamijyo kale. maanta barnaamijkeena video editor ma noqon doono. maanta asxaabteena dad ka mid ah ayaa na soo weydiiyay barnaamijkan codadka lagu jarjaro ee Adobe Audition dadku u yaqaanaan oo ay adeegsadaan inta badan editorada codka editorka ah editingka codka loo adeegsado. editingka codka ayaa loo adeegsadaa barnaamijkan la yiraahdo waxa la yiraahdaa magaciisa Adobe Audition. Adobe Audition 15 baan igu jira hadda, laakiin Adobe Audition nooc kasta uu yahay ilaa 21 waa la helayaa. versionka doonaysid Adobe ayaad ka heli kartaa meelaha kala duwan. haddii aad doonaysid inaad daatada heshidna way la soo xiriiri kartaa. marka Adobe Auditionka ayaa maanta ku soo qaadan doonaa hadduu aabaha awoodda la ogolaado. casharkeena maanta waxaan ka qaadan doonaa haddii alla idmo 2 lesson oo aan ugu talagalnay asagoo dhan inaan ku soo koobno 2 cashar oo aan doonayno in Adobe dhan ku soo afjarno editingka codka, effects loogu sameeyo iyo sidii loo bedelo codad is dul saaran looga dhigo ayaan dhamaantood waxaan ku soo koobi doonaa waqti kooban iyo waliba si aad record uga dhex samaysatid. Adobe-ku waa barnaamijka sidaan u samaysan facekiisa hada aan tuso sidaan u samaysan yahay. waxa uu leeyahay meel codka lagu jarjaro oo space iyo waliba meel codadka la isku saaro oo space kale ah oo sidaan u samaysan. markuu uu originalka yahay koow codadka ku jira ayuu ku tusayaa. Adobe Audition-ka weeyaan. marka codadka meesha la isku saaro halkan weeye, halkaana waa meesha lagu editan gareeyo. labada madax ayuu kala leeyahay. marka effect uu u baahan yahay codka in wax laga bedelo u baahan yahay. codka hadda doonaysid inaad loo garan waad ka bedeli kartaa. hadda doonaysid inaad calaamadeysatid siyaabo gaar ah si calaamadahan hadda ka muuqanayo kaleeto casharka qaybta dambe ayaan ku qaadan doonaa. qaybta horeeto waa Adobe-ka iyo sida loo isticmaalo. Adobe marka waa kan Adobe Audition waa kan. marka qaybahan oo dhan oo originalka hore codka ah inaan ka saarnaa meesha doonaynaa. si aan uga saarno halkan ayaa Control A leenahay. Control A baan adeegsanaynaa sida qoraalka lagu highlight gareeyo. dhammaantoodna delete baan leenahay. waxa aragtaa halka inuu ka wada tirmay. halkan sidoo kale ku dhufan doonaa Control A baan leenahay. ayadoo dhammaantood ma tiraysaa all on tirayna walana. marka waxaan aragnaa in dhammaantood nala ka tiray wixii cod aan haysanay. Adobe Audition halka ayay ku dhamaadeen. halka markay ku dhamaadeen waxaad samayn kartaa inaad record samaysid oo duubtid cod, inaad sidoo kale samaysatid in codad kugu jira computerkaaga. haddaad doonaysid inaad record samaysatid qaybta yaroo hore hoos oo gududan baad ku dhufanaysaa. kadibna wuxuu ku leeyahay intee ka dhiganaysaa noocyadan kala duwan. waa inta uu noqonayo codkaasi spacekiisu. midka uu isoo qabtaan ka dhiganayaa. halka marka waxaan nooga bilowday record. waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta iyo dunida. okay marka inta ayaan ku dhignay. waxaan leenahay inta ayaan hore iska jaraynaa. muuska xariiqda yartaa halkan dhiganaysaa. waxaa qabanaysaa keyboardkaaga kiligtiisa. waa muuskaaga kiligtiisa oo ah midda bidix. right maahan waa midda bidix ayaad qaadanaysaa. marka waxaa qabanaysaa muuska ku dharaagaraynaysaa. marka muuska ku dharaagaraysad intaas highlight-ka saartay si fudud baa u tiri kadhaa adoo leh delete computerka delete sidoo taabanahay. haddaan ku soo noqono si kale u highlight gareyn kartaa sidaan aan ahayn. meel muuska ku yaalo waxaad qabanaysaa computerkaaga shiftigiisa ayaa qabanaysaa. shiftada markaan qabto waxaan isticmaalayaa calaamadaha array ee computerka. array qofka soo garanaya oo keyboardka dhanka midig uga yaala ayaan isticmaalaynaa. kor iyo hoos iyo waa kuwa kale ah. midda waxaan isticmaalaynaa dhinacaan doonan in u socono midda ku soo jeeda ayaan isticmaalaynaa. waxaan arkaysaa si fudud baan u saaraynaa. qaar kale ma ka reebi karnaa. marka saa u dhamaata ayaa hal mar delete leenahay.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دا وضيال يدقيستيال كسو دوادا برنامج كينا مانتا iyo dunida. Okay, marka kila yar baan duubnay oo maanta iyo dunida. Okay, marka kidibta yar mid kasta aan doonaynaa inaan jarno sidaan aan samayn karnaa highlight baan saaraynaa. Okay, haddaan doonaynaa in labadan lug waa laba lug is saaran aan ka dhigna kuwa daciifa yar yar macnaha iyo codka intuu leeyahay waxaan leenahay waa highlight garanayna sida highlight garanayna waa maxay sidaan waa highlight garayn karnaa oo ku jiidna muuska control A na waa dhihi karnaa control A marka tiraahid way ka yar yaraanayso ma jiidid waxaan isticmaalaynaa A plus iyo minus aan isticmaalaynaa hadaan plus dhahno maxaa arkaysaa uu buuxsamayo codkii hadaan minus hadaan ka dhignana لوجي ويريرانا وح يربي إنه نقدين مركب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دا عدك وإنتي سي لكن ويريرانين مركب نسيت أو استعمالنا مركب دوننا وينين يجرين طبعا دونينه دا دوننا عد كان عرك ودقنا كردينه حالنا كنترول صورنا بدورنا ماركيسا بحن سمعنا إفكت ينتجينا وكل فننا مركب كل فن كدي محلنا هاي lambarka saddexaad ama amplitude baan ku dhufanaynaa kadibna kan ku sii xiga ayaan ka dooranaynaa oo ah amplify fade marka kan aan tagno tiro ku siinayaa tiradan waa 10 bot 10 kor u dhig 10 cut 10 ka jar 10 bot hadaan dhahno 10 buu nagu kordhinayaa السلام عليكم عدك وديرادي عدك سوما ديران كنترول زد لسو سيسو نوغو نقطة هالك نوغو نقو افكت ده كدبنا واحد على امبليتود كدبنا امبليفاي فيد مركا 10 بوت بانير مركا هورا 10 كات ده 10 كتر 10 كات هنوغدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي اد بو يرادا سو ما jeedid marka control z leh meeshiisa noogu soo noqdo control z leh hada sad marka ay codka intiisa noogu soo noqday haddaan doonayno inaan mid ka duwan isticmaalno oo aysa shucaaciya is waxba noogu bixin amplitude baan leenahay meeshaan amplified ka isticmaalayna waxaa isticmaalaynaa normalize muxuu ku leeyahay inta ka dhiganaysaa tiradaan ku siinayaa 200 iyo wixii ka badan 100 ku siinayaa 300 300 baan ka dhiganay ilaa ka dhiganay waxaan niri okay waxaan arkaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi codki cirkaas uu galay laakiin dabayl ma leh laakiin qaybtii kale hadan isticmaalayna hada codku uu meel spacekiis marka hore meel laga soo duubay dabayl lahaa tashuushba ku si badanahay laakiin hadaad isticmaashid meeshaan la yiraahdo amplitude normalized waxay noqonaysaa in codki sida u duubto uu noqdo uu dheeraado kaliya u soo dabay bilaa dabayla labada nooc ayaan isticmaali karnaa okay haddaan doonayno marka haddaan doonayno in labadan lug mid ka goyno mid haddaan doonayno wax ka goyno waxaan leenahay waxa la yiraahdaa kan waxa la yiraahdaa r kan waxa la yiraahdaa l marka midkaan doonayno midkaan doonayno kor aan ku dhufanaynaa meesha dhinaca ta u baxno aan ku dhufanaynaa marka kana color buu noqday waa active kana waxa noqday waa active kana waa inactive sanku waa inactive kana ma ku yahaano waa active marka in qaybta kale ayaan dooranaynaa adoo muuska dhexda keentida soo dhan u doormay laakiin waxa rabaa inaad kor ku elka inaad ka bixin elkana waxa kala qaybisa line-kan iyo r kuwan waa r kana waa l marka kor baan soconay markaan soconay maxaa dhacday kala baro kale iga dhig marka delete inta iga tir kadib waxaan leenahay oo ku dhufanay waxba ma leh kan hoos hal uma hayso uma jeedid waa active inta dambe bisa hal doonto barnaamijkeena maanta iyo dunida okay marka asoo dhan isku ka wada hadalsay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta marka daciif buu ahaa marka kan uu joogay hal lugay ahayd moogta labada lugood markuu yahay buu fiican yahay oo waxa mixerku wuxuu soo kicin karaa iyo aaladaha la adeegsada labada lugood markuu ku fiican yahay laakiin hal lugood laga dhigo ma fiicna okay qaybtan kore music waa ka dhigan karaa
qaybtan hoosena codkeeda u deysan karaa. Marka ka dhiganaysa music waxaad sameynaysaa kan kore inta hadhay iga tir. Markaan tiro waxaan sameynayaa inaan soo gashadaan rabaa. Markaan soo gashanayo waxaan meeshaan waa dooran karaa oo import file ah. File-na ku dhufan karaa. Marka import file noo dheh kadibna xagee ka soo qaadanaysaa ku leeyahay. Markuu sidaan kugu sameeyo waxaan leenahay create folder iyo dib uga noqo. halkaa marka waan ku dhufanaynaa. halkaan ku dhufano muxuu ku sameynayaa computerka ku dhex geeyay xagee ka soo qaadanaysaa ku leeyahay. waxaan leenahay waxaan ka soo qaadanaynaa meeshaan ka soo qaadanaynaa dacjaradaas ay ku jiraan waxa codad ku jiraan aan rajeynaya. computerka codadka ma lahayn berigii warbaahintii ugu dambeysay iyo codadkii ugu dambeysay, laakiin waxaan raadinaynaa wax cod ah ayaan raadinaynaa. haddaba saan u helnay h baan qoraynay heeso. okay, heesaan soo helnay, heesaan ku dhufanay. okay, tanaan soo qaadanay kii ugu koreeyay. anna waxaan ka rabnaa inaan codka kaliya ka qaadana ayaan rabnaa. halkaa ayuu noo soo joogaa. markaa halkaa way noo soo gashay, codka halkaasuu noo soo galay. kadibna waa kusoo jiidaynaa qaybta kore ayaan keenaynaa. qaybtan kore marka keeno maxay dhacday inuu noqday caradhaan qabsaday. okay, markaan iska duubno marka iska yareyn minus dheh laba lugood yaryar buu noqday. okay, marka waxaan rabnaa inaan aarka meesha ka saarno. aarta ayaan meesha ka saarnay. okay, muuska kor nooga kacay. qaybtan aarta iska imow saan ugu jiid bis adoo darbiga hoose raacaya. aar waa iska tirnay. aar markaan tirnay aar waa tirnay. marka aarkaas tirnay wuxuu noqday kan kore uu dheer yahay naga gaabi weliba qayb naga sii jar. kan dadweysa qayb kale ka jar. kadibna waxaad tiraahdaa control a marka tiraahdaa effect dheh. effect marka tiraahdaa normalize yaan tagna may waxaan leenahay tii kore tan ku dhufanaynaa ama normalize leftigeeda waa isticmaali karnaa. waxaan leenahay tii de normalize ige kan iri 300 baa ahayd. waxaad tiraahdaa minus qor 200 qor minus 200 baa laga jaraya macnaha minus 200 baan iri. okay, marka u keeda normalizing. okay, waa nagu siyaadaba. okay, kan noqo marka waxaan tiraahdaa tanaan tagnay waxaan niri 10 minus 12 ka go'an leena minus 12. okay, markaas wax yar noqday. okay, kii hoose ku dhufo kan waxaan leenahay ma asoo dhan koobiyeen mana dhinaca kale noo koobiyo hoose. copy noo dheh. copy waa control v t aan naqaano weeyaan. markaasaan niri basti noo dheh. okay, intaanu noqday. codkan kaleetaa dheer. intaa uu dheer yahay ka goo marka. inta uu dheer yahay ka goo. okay, masana kasii goo intuu dheer yahay adoo qaybtan kore raacaya. darta halkaan dad tiraahdaa hataa meeshaan wuu iska cello moogta waxba laga goyn maayo. okay, marka aan ogaana marka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. waa ku wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. assalaamu calaykum. muusika iyo codkii wada socda. muusikada marka daciifka ka dhigi ka dhaayo waxaad leedahay xagga tagaysaa saana u jiidaysaa highlight garaysaa moogtahay. effect iska tagaysaa kadibna amplitude effect waa sii tagtay 12 kale ka sii sar waa sii yaraysay wax yar ba ka dhigtay. okay, hadda marka ayoo dhan highlight saarno kadibna weyneyno maxaa arkaynaa inay markaas codka inuu weyn yahay. assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. kulan ku wanaagsan daawadayaal. labada lugood L iyo R marka waxay noqdeen halkaan iskugu tageen. qaybta dambe sidaan ugu tagi lahayn waan arkaynaa. marka qaybtan aad joogtid qaybtan codadkii saas isku keentay. meeshaan aad doonaysid inaad muusikada qayb ka mid soo dhigtid labadan waa adeegsana labadiiba waa isku keenay. mid kale dan soo qaadana sidoo kale waxay noqonaysaa
in aan meesheeda ku sameeyno waayo marka waxaan dhan dib aan uga noqonaynaa asagoo fudud iyo control z ayaad qabanaysaa control z ilaa meeshii uu ka dhamaaday uu ku tago control z kaas aan wadaysaa muusiga sidii noogu soo noqotay tii codka aaway qayb baa maqan asna control z okay labadaan baa ku wanaagsan kana sidii buu noogu soo noqday kana sidii noogu soo noqday okay marka kanaan doonaynaa inaan dhex gelino muusikada codka ah waa koobiyeysanayna intaasaan qaadanay waxaan yiri control iyo c baan qabanay waa koobi macnaha koobiga caadiga ah taqaanay kadibna waxaad tirtanaa double click siisay double click midda siisid midda double click siisa ku furmaysa okay heestani waxaana iska jarna qaar kista soo hadhay masana sii jar waxa markay noo soo hareen waxaan yiri meesha ugu dambaysa nagee marka meesha ugu dambaysa nagee meesha ugu dambaysa aan dhigano codkeena okay marka aan baraawin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh astaantii iyo waa samaysatay okay control z de control z kan intii koobigan dhex dhigan aan yareyna kan codkiisa waa dooranay highlight baan saarnaa control a baan riixnay kadibna waxaan niri aan yareyna rabna effect kadibna amplitude amplify waxaan leenahay waxa ka jartaa 20 ka jar 20 ka jar yaree cod yar ka soo haro okay halka dhexdiisa ayaan dhiganay meeshaan aan doonayna inaan dhigano marka calaamad si lagu sameeyo hadhow arki doonaa casharkeena dambe halkaana codka ku soo baasta ku niro baasta control v ooyee barnaamij baa ku jira assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh kulanti wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta iyo dunida okay waa samaysanay marka barnaamijkii ayaan samaysanay markaan samaysanay ayaan iska save garaysanayna markaan save garaynayna maxaa leenahay si waxba dhib ah soo ma leho wuxuu la mid yahay import waxa export laba leh save waxa la file dibna waxa leedahay save as ka geed dhiganaysa save as ka dhiganay ujeedadu waxay tahay save dara meesha hore uga aadi kara laakiin save as baan leeyahay sa meel garanay u dhigto kadibna waxa leeyahay desktop kan iyo dhig amran igu qor halkaan save id marka halkaan save intaan dhihin halkaan ka yareyn kara codka waxa leeyahay video muuqaalka macnaha mp3 weenu noqdaa horta mp3 laan ma mp3 marka ka dhigtid ayaad option kan waa sii riixi kadhaa option kaas waxa ku jira ina codka daciif ka dhigtid inta megabytekiisa u yaraada kilobytekiisa halkaas aan ka sii furi karaa waxaan ka dhig hoos u aad waa sii yaraan waa kordhay korna haduu yaraan waa sii yaraan meesha ugu 80 dan ka dhigo waliba kor buu ka jiraa halka markaan imaado 20 kilobyte per second dan ka dhigo wax yar oo daciif noqonayo laakiin codka saameyn kuma yeelanayo laakiin wuxuu yaraanay is megabytekiisa kilobytekiisa yaraanay cod yar oo daciif inuu noo rabnaa kadibna okay noodi kadibna save garanaysa waa save garaystay computerka dhexdiisa nooga fiiri waa kan halkaan yaala oo ku dhufanaysa waa shadaysa okay waa soo kici diiday culayskii ka batay waxaan leenahay VLC ku kici asaga codadka ku fiican sida loogu saqaashay okay cancel okay VLC marka ku kicina codka ma arkaysaa wuxuu noqday cod caadi ah shaqeynaya computerka ada dheeray waa dheereen aduu gaabna waa gaabanaya okay waan save garanay waan sameeynay codkii sidaas aan ku sameeynay waxa noo dhiman sida qaybtan aan wax ugu edit garayn lahayn qaybtan si muuqaal si maqalkan isku sameyn lahayn muusigooyin iska dhex jira uga dhig lahayn barnaamij oo diyaarsan dhowr saac soconaya uga dhig lahayn anything sida doonaysa aan ka dhigno sidoo kale waxaan doonaynaa inaan codka bedelno codka dan doonaysa assalaamu alaykum sidaan haduu yahay waxaan sameyn karnaa inaan codka bedelno oo effect sameyno دي أنا من هبدا ودوس بلاي سيدي لا يضوى نسخة نلقوها كربوها وتمحرم في العمالة وإنفرس
codkii baa la dabagediyey oo waxa laga dhigay qof luqad hindi oo kale ku hadlaya marka casharkeena dambe ayuu noqon doonaa save gareynta waan aragnay Adobe Audition loo isticmaalaa hal cashar baa noo haray kaasaan kusoo koobaynaa aabaha awood loo ogolaado casharka maanta intaasan kusoo koobaynaa waa casharadii Ikhlas Academy aan soo dhexgelinay qaybtan Adobe Audition ka wadada noo codsadeen inaan usoo dhexgelino laba cashar baan ka qaadan doonaa aabaha awood loo ogolaado muuqaalkan ku xiiso gashay fadlan subscribe ta hilmaamin iyo waliba inaad comment ka noogu reebtid aad baad u mahadsantihiin waad naas Axmed kaga tagaya cashar dambe oo xiiso leh